khudbadii jimcaha ee maanta masaajidka Sheekh Abdul Qaadir ee Harawa ee bartamaha magaalada Boorama ayaa imaamka masaajidkaasi Sheekh Xasan Dahaye Axmed wuxuu kaga hadlay arrimo badan oo ay ka mid yihiin siyaasadda Soomaaliland iyo saamigeeda iyo xadgudubyada ciidanka booliska ay u geystaan dadka maxaabiista ee shacabka. waxa kale oo uu ka hadlay imaamka masaajidkaasi Sheekh Xasan Dahaye Axmed khudbadiisii jimcihii hadal uu magaalada London uga jeediyay jaaliyadda Soomaaliland Xaaji Cabdi Xuseen Xaaji Cabdi Waraabe oo kamid ah golaha guurtida Soomaaliland kana mid ah waftigii tagay magaalada London. Sheekh Xasan Dahaye imaamka masaajidka Sheekh Abdul Qaadir ee bartamaha magaalada Boorama wuxuu ku sheegay khudbadiisa jimcaha maanta qaabka saami qaybsiga ee Soomaaliland ka jirta waxaana kamid ah khudbada sheekha. waxaweyaan wadankani markaan ku cadilnay waxay lagu aasaasay waxay nabad halaytahay tacliinta wadankani goormay ka dhigi dad wadani ah oo qabiilista ahay kii boqolaadka sanadkan ku saaray kii dhalinyarta hadduu maaragtay reer ku abaaqayo kii maxay danay waxa weeye ummadani waxay dawlad ku noqon kartaa iyadoo qof xuquuq isku sameeyay la helo beelaha waxay isku diray ee markii dawladda la isku yimid maanta beelaha baa dawladda inta ka mid runta baa dawladda وأنا ليش أسمع بسوي ما أدري هو ومضوا ولا كنيسة هذيك اللي هو كنيسة ما أدري معي على جميل كيف تكلم تفوق كاس هذي أكثر من التعليم أنا كذا اليوم وحاول وحدي أهو ما أدري وزارتها كيسة وكاري وزارتها عنده دولنا وفي مصر هذه سلسلة ما تدرس ما تعرف عليها لما كنت تقول ما غير ما اسمعش كلامها لما كان وزارة الجوي يروح للمدير وده كان يسوق الصماس اللي هو ماشي في سوق أو جهة مدنية أيها اللي وزارة التعليم وحكى حاله هذا وزارة التعليم العين كان صوته أول حاجة مطلوب وحبطنا لو جروا في خاطئة لا يمكن مطلقا هذا بيحصل هي وقع حي بلد يا اخواني تعليم كما كان يعني ويا مدن بالتشاع ومدن هذه بدلين اون قبيله بدلين اون كو كو قويه بين اون كفصله يقال فصله زوالين او حقوق اللي هي ولاي كريم تعليم ما نقولش imaam Sheekh Xasan Dahaye Axmed maruu ka hadlayay xadgudubyada ay ciidamada booliska u geystaan maxaabiista xiran wuxuu khudbadiisa ku yiri maxbuuska laga diro iyada masaakiinta booliska ee waxa sheegaya maxbuuska la soo xiray laga diro booliska Soomaalidu ka duwanaa nala sugidii iyo hangashi wixii loo diray oo xataa loo diray iyo walaalayaashii iyo wixii maxaa soo baxay ويخدم وناجل البوليس وقع جاكا بيهياء الجوائية من بوليس يلمك ويرج إلا إذا قفتوا وصل جامعة وإكتر ويا حاصل الجراء يحضر الامتحان ويا لكن بوليس الصور الشرف والعنش هذا البوليس يقول كالجوتاب بين ما شرف المنطورة لكن ستيشن كينا مرمى وربما يصدح معه انت لمن أسكري عليه قف راح تطلب كان يمسح كذلك الوضوية معلوش اللي يسترجع عليها قبل كعين بس ما تحدث أنا أخبارنا وإلا ما تحدث يروح بينا وإنت ما يروح ولا يروح لأنك ما أنت محبوس كعب الاحترام المحبوس هو عدو وكراه تحرق الأرقى عليه أصير مرة عن الشديدة لا أبدا كلنا لما تخلوك إذا أنت محكمة حكومة محكمة وطننا تحكم كنتو دي تعطيه حكومة ينزل في عالم الدنيا وحديث الحرية إذا قتلتم فأحسنوا القتل هذه تحتاج له حكومة يمكن لبس الشرف وفي عام يقول لما ينسعي الله sidoo kale imaam Sheekh Xasan Dahaye wuxuu soo hadal qaaday hadal uu Xaaji Cabdi Xuseen Xaaji Cabdi Waraabe oo kamid ah wafdigii Soomaaliland ee tagay shirkii London uu jeediyay
جارية الصوماليلاند ee ku dhaqan magaalada London sheekha oo hadalka xildhibaan Xaaji Cabdi Xuseen ka hadlayana waxa hadaladiisii kamid ahaa inuu dadka maanta ugu weyn ku tayraado boorana dadka maanta ku duuyaa waan diinay lagu duuro boorana rasaas ku midna waan kala iska soo noqonay anu deegaanay ay kamid qabiilnimo waa hadlay laakiin waa hadal dadka dhaawacay hadalka noocaas dawladna kuma haboono wuxuuna kuma haboono wax ma tinay ku qadama wadayaasi dib haw hadaan leeyahay oo dadka reergo ma doo kan jooga cudurdaar siiyo u soo yahay hadii sanad walba la xasuusan lahaa afkaas oo ma soo bixin imaam Sheekh Xasan Dahiye Ahmed ayaa isoo kamid ah culimada waaweyn ee gobolka Awdal wuxuuna inta badan ka hadlaa khudbadihiisa Jimcaha kolba xaaladda ku soo korodha dalka waana sheekh ay bulshadu aad u xiiseysay khudbadihiisa Haashim Sheekh Umar Good Somali TV Boorama